شير maxaa ka dhacay shirkada uga soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim shirka waxaan uga soo baxay saad wadaagtiin waxaan gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani waxaan ka mid ahaa asaasayaasha xisbiga wadani waxaan ka mid ahaa labadii nin ugu horeeyay xisbiga wadani labadii nin ugu horeeyay baan ahaa xisbigan aasaasan iyo ciro runtii maanta waxaan ku dadaalayay inaan doorasho xor oo xalaal galo oo aan muddo badan u soo halgamaynay hoolkii markii aan galnay waxa la yidhi musharax madaxweynaha loo codaynaya cabdiraxmaan ciro dee gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani baan ahaa anigu waxaan ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbigan ahaa markuu cabdiraxmaan marka gudoomiyaha dee cod gacanta loo taago aniga waxayd gudoomiye ku-xigeenkii koowaad haddaan ahay in anigana gacanta lai taago dabeedna anigu codka dimuqraadiya halkaa ka sugayey dabeedna waxaa laiga horraysiiyey ninkii la daba socday oo isagu aanan xisbigana ka mid aasaasan ahayn oo gudoomiye hoosta ku haystay buu la soo baxay dabeedna aan saasaan shirka kaga soo baxay cadaalad darradii aan ka baqaynay ee intaasoo muddadii aan xisbiga ku soo jiray lahaa cadaalad darraa ka socota in cabdiraxmaan difaacayey halkaasay maanta ka dhacday cadaalad taridii ugu weyn baa xisbiga ka dhacday waxaan ugu sheegay taageerayaashaydii oo 181 kaararkii baa loo diiday dabadday taagan yihiin sidaa darteed waxa halkaa ka soo baxay waa wax khayr sharci ah waa cadaalad darro waa cirana wuxuu ku tallaabsaday cadaalad darradii Soomaaliland ugu weyneed 5 sanaan xisbigan ku soo halgamayay 5 sanaan mucaarad ahaa 5 sanaan mucaaradkan dhiigayga u shubay maanta waxa la igu bedelay nin aanan taageero iyo cod gobolka awdal ka soo hoynin waxaan ballan qaadayaa waa inoo booramiyo wadani